aqaltii la'aantii keligii ma taagni haddaynaan istaakulin tabaryeelan mayne aqaltii la'aantii keligii ma taagni horta taariikhda leegada qofba sibuu u sheegaa qofna waxbuu ku daraa qofna wuxuu ka gooyaa aniga ma soo taagnin laakiin guri leegaan ku dhashay aabbahe ayaa wuxuu ahaa ninkii oo dhaqaalaha leegada siin jiray bade waa tou u gaday sartii oo lahaay ashkir gurac oo loo yaqaan sarta leegada 13 kursi oo u gaday wuxuuna u gaday waxay ah isbahaysiyaa jira waagaasito reer Cusmaan Kanadiid ayaa abaabulay waxaas asagana waxay u ahaayeen abtiyaal marka dhinacaas la isku taageersanay waxa qabyaalad horta waa iska jirtay laakiin si fiican oo qurxoon ay u jirtay barigaas leegada marka la yiraahdo Soomaali waxay ku dhahayaan soodkay ka timid leegada soodka ma ahaan leegada xamara lagu sameeyay talyaaniga hor istaag cagtuu saaray cagta markuu saaray way qabteen Hargeysa xafiis ay ka furteen jigjigna xafiis ay ka furteen markii dambe waxay rabeen Djibouti inay ka furtaan Faransiiska ku fahmay way soo guureen hadana xamre yimaadeen abaabulka meeshay ka wadaan ilaa yani ay xornimada laga qaato waxyaalaha ka mid ah waxay ahayd isticmaalka talyaaniga Croce del Sud meesha la yiraahdo oo hadda loo yaqaan maxaa la dhahaa ii sheekeen nay hotel wada bagoys waxa Soomaaliya oo siyaad u bixiyay hadda waxa loo yaqaan mawduuc waa ka ana xamar leh Muqdisho Mall hadda la baxay Muqdisho Mall Croce del Sud al dhijiri ama kala hotelka wada bagoys xidigta wada bagoys la dhaho talyaaniga kabihiisu ku mari jiray Soomaaliga qolo kasta u dhasho aga cadaan inuu ku maro way meesha haddii soo ka wada la wado waa la karbaashi jiray maalintii dambe aabbahay iyo koox badan oo isbiirsatay waxay ka soo baxeen xamar jajab way soo yani leega ahaan u socdaan gaardi ku soo maray banaan baxay ku soo baxeen markii soo gaareen Subarshiino meesha la yiraahdo Binquer ul ala la dhacay dibaa loo celiyay Allah u raxmada dad bad oo madax ah oo Soomaaliyeed ah kamid ah oo aan rabin inaan magaca waxa qabriga Ilaahay waasac ugu dhigay way baxeen General Daoud agtiisa orod ku galan xerada xafiisyoni wuxuu soo raacay booliisiin military wuxuu yiri ordaha socda laakiin samid isameeya marka hebel iyo hebel ag mareysaan waa kuwa ayaga soo bursaday waxa tiraadaan Soomaalidiidu islac u dhimo General Daoud anka kelmadaas bixiyay waqtigii leedahay oo ku bixiyay waxa jirtay marka hees oo waqtigii leedahay la soo qaaday laba qof oo hees u qaaday leedahay wilgad قاسم إلولة إيو أحيا ودني لابد أن نبدأ حسوس تتبير وإذا كواكو حماي أقلتي لأنتي كليجي متاني حتى